axmed muumin sayd wasiirka wasaaradda beeraha ee maamulka somalilan ayaa waxa uu shaaciyey in waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha maamulkaas ay heleen xog sheegaysa in bisha 10aad iyo bisha 11aad ee sanadkan ay ka di'i doonaan roobab dabaylo wata gaar ahaan gobolada dhaca bariga deegaanada somalilan sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in maalmaha soo socda guud ahaan deegaanada somalilan laga dareemi doono kulayl xaddhaaf ah kaa oo ay roobabkuna ka dambeyn doonaan sida wasiirku uu tilmaamay waxa uuna intaas ku daray in dadka deggan xeebaha inay ka fogaadaan baqdin laga qabo in dabayluhu saameyn ay ku yeeshaan si gaar ah gobolada Sool iyo Sanaag dhinaca saadaasha hawada waaxda saadaasha hawada wuxuu ugu wargeliyay in bilaha nimka soo socda bisha 10aad iyo bisha 11aad roobab ay dib u soo curanayaan hayna u badanayaan dhinaca muxuu ahaayay bariga Somaliland marka waa in dadku Sool iyo Sanaag bay roobab ku badanayaan marka dadweynaha deegaanka waxaan ku buurinaynaa inay roobabka ka faa'iideystaan oo ay ku dadaalaan sidii roobabka looga faa'iideysan lahaa runtii roobabkaasi xalay Sanaag way ka bilaabmeen waxoogaa yar oo dabaylaha bay wataan marka taana dadku waa inay taxadir badan sameeyaan oo waliba dhinaca badda oo kale u badan marka dadweynaha waxaan kula talin lahaa in meelaha baddana inay ka fogaadaan hadda waxa soo bilaabi doona iyaguna weegaga soo socda kulayl xad-dhaaf oo saadaasha hawadu nagu wargelisay kulaylka xad-dhaafkiina wuu iman doona kulaylkaas wax oo imka maalmaha bilow inagu ah kaasina wuxuu salka ku hayaa in roobabku xagga dambe ay ka fiicnaan doonaan marka taana waa in dadku ay si ogaadaan marka laga reebo digniinaha uu bixinayo wasiirka wasaaradda beeraha ee maamulka Somaliland ayaa dadka reer Somaliland waxay maalmihii la soo dhaafay ka cabanayeen kuleel iyo cimilada oo aad heerkulkeedu u saramaray